marwe degan miiraaj oo ah gabar deegaan ahaan ka soo jeeda Somaliland ayaa waxa ay la kulantay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo degan ayaa sidoo kale waxa xil looga magacaabay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya iyadoo la taliyo u noqonaysa wasiir Dubbe wasiirka warfaafinta Soomaaliya degan ayaa bilihii ugu dambeysay baraha bulshada si weyn ugu soo caan baxday gabadhan ayaa hadal haynteedu waxay ka bilaabatay inay caalanka Soomaaliya ku goglatay sariirteeda jiifka mar ay ku sugnayd magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland arrintaasina ay ku mutaysatay xabsi muddo 6 bilood degan ayaa markii xabsiga laga sii daayay u wareegtay dhanka iyo magaalada Boorama oo ay qoyskoodu ay ku nool yihiin ayaa haddana waxa ay halkaasi ku gashay xabsi kadib markii ay is hortaagtay in caalanka Soomaaliya Boorama lagu dhex gubo muddo dhowr iyo 10 maalmood ayay degan ku xidhnayd saldhigga dhexe ee Boorama iyadoona markaasi kadib la iska sii daayay ayaa haatan waxa ay soo muuqatay iyadoo sawir kula jirta madaxweynaha Soomaaliya isla markaana xil looga magacaabay xukuumadda federaalka Soomaaliya arrintani ayaa dadweynuhu waxa ay si weyn ugu lafagurayeen baraha bulshada qaarkood waa ay hambeliyeen halka qaarkoodna ay ku tilmaameen in dawladda Soomaaliya ay ku xumayn u sameeyayso arrinkaasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمكر وايد السلامي ميل كست أمد الصومالية ذيك شوقان عالمك انت كبعد وحارة بالك إنه هذا اليوم مدن محمد عبد الله فرماتشو مدحوينها قرن كان مدحوينها أمد الصومالية مدن مدحويني مهن علنت هذا هل إيه اللي بيقرينا مقصوكو بكرة لكن تانكيو مدن مدحويني وحايسي سيكل قعايلي جعايل أنا هرو أركين وانا كاقم هذا علني مدن مدحويني انت كبعدي waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasiirkayga wasiir Dubbe thank you mudane wasiir har iyo habeen adiga garabkayga ahayd ma dhihi karo maalin qura garabkayga soo istaagteen maalinta ku arkay laayimka way barbar taagnayd thank you mudane wasiir abaalkaaga ma gudi karo shukran jazaakallah Soomaaliya noolaato